الله وثناء لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. أما بعد، إخواني وأخواتي في الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. intaa kadib waxaynu u mahadnaqaynaa ilaahay subxaanahu wa tacaala inaga dhigay nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam ummadiisii soo ajiibtay ee raacday ee rumaysay ee sidan ugu hilinaysa maalinta qiyaamahana kuwa jannada u anfaco allah inaga dhiga. intaa kadib waqtigu sidaa la sheegay waa kooban yahay. waxaan iyagana u mahadnaqayaa intaanan dhaafin dhallinyarada soo abaabulay kuwankan qiimaha badan ee runtii sheegaya in daa'iratu muslimiintu wixii laga doonayay in badan oo ka mida aan lala helin. waxaa la doonayay in diintooda iyo rasuulkooda laga dhex galo, laakiin xiisahan ay hayaan iyo kalgacalkan iyo jacaylkan idinkuna waad ku mahadsan tihiin. haddii aad tihiin dhallinyarada soo abaabulay iyo qolada duubaysa gudbinaysa, qolada fadhida dhegaysanaysa iyo qolada adduunka meel kastaba ka dhegaysanaya, idinkuna waad mahadsan tihiin sida fiicana u soo camirteen iyo sida khayrka u dalaynaysaan. nabiguna wuxu uhi sala allahu calayhi wasalam, man dalla calaa khayrin falahu midlu ajri faacili. qofka walaalkii khayr tusiya ama qofka kale khayr tusiya wuxuu leeyahay qofkaasi ajri lowara in la eg. kelmadan kooban waxaan soo yaro gudbin doonaa marka hore hordhac aan kaga hadli doono cadaawadda gaalada iyo waxa u sababa, marka labaadna tilmaamaha nabigeeda wax ka qaadan, marka saddexaadna hadday suuro gasho erayo kooban oo dardaarana insha allah. ugu horeyn waxay isweydiin la maxaa sababay caydan iyada ah ee kolba la caayo lagu soo celcelinayo nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam, iyadoo mararka qaarkood shakhsiyaad ay arrintaasi ku samaynayaan qoraal oo saxaafadda ku qorayaan, haddana ay maraysaba dowlado iyo madaxdooda. aan soo dadejinee waxaa taa u sababa siraaca iyo legdanka ka dhaxeeya ciddii xaqa u taagan oo hormuud ay yihiin rasuullada ilaahay iyo cidda uu horkacayo ibliis iyo shaydaan. legdankaasi wuxuu soo bilaabmay iyo dagaalkaasi markii ilaahay u abuuray subxaanahu wa tacaala nebi aadam, oo aynu ogsoonnahay ibliis weerarka uu ku qaaday iyo inuu diiday inuu sujuudo iyo inuu kibray iyo inuu xaasiday saddexdaba. ilaahayna wuxuu uhi bacdukum libacdin caduw walakum fi lardi mustaqarun wamataacun ilaa xiin. cadaawaddaasi inay jirayso oo ibliis iyo aadamahana ay ka dhex jirayso, inta ibliis raacdayna ay colaadinayaan dadka wanaagsan ee saalixiinta ah. ilaahay waa xuso qur-aanku ku caddeeyey. xikmadda ama arrintaa ka dambaysa waa imtixaan ilaahay u imtixaanayo dadka wanaagsan iyo dadka xub inay kala baxaan. ilaahay baa wuxu uhi wajacalnaa bacdakum libacdin fitnatan atasbiruun. qaarkiiba qaarka kalaanu ku imtixaanay mayli sabr, bimacnaa ku sabra. markaa sabirkeenaa la eegayaa iyo mabda aynu xambaarsannahay inta uu inaga dhab yahay. hadduu ilaahay doonayo subxaanahu wa tacaala dadka nabigiisa caayaya ama dagaalka muslimiinta iyo diintooda ku haya, mar qura ayuu afgabii lahaa ama meesha ka saari lahaa. laakiin ilaahay baa wuxu uhi dalika walow yashaau allahu lantasara minhum walaakin liyabluwa bacdakum bibacd. hadduu doonayo ilaahay wuu halaagi lahaa gaalada iyo waxaa xumaanta samaynaya, wuuse isku keen imtixaanaya. waxaa la eegayaa doorka iyo kaalinta iyo difaac iyo dagaalka ay qaataan awliyada ilaahay. arrinkaas wuu sii soconayaa, waxa uu socon doonaa ilaa inta uu la dagaalamayo
nabiyullaahi ciisa calayhi salaam kii cawarnaa ee dajaal alacwar la odhanayay. arrintan cadaawaddan iyada ah ee soo jireenka ah aad waxa uga warramaya oo ilaahay uu ku soo bandhigayaa qur-aanka kariimka ah. qisooyinka nebiyaduba waxay ka warramayaan waa cadaawadda ay hayaan gaalada iyo ibliiska isxambaarka ah. ilaahay baa wuxuu yihi kadalika maa ata aladiina min qablihim min rasuulin ilaa qaaluu saaxirun aw majnuun. mar kasta oo rasuul yimaado waa la caayay rasuulkaas waxaa lagu sheegayay sixir leh ama nin waaran. waa laba tilmaamood oo la isku caayo oo qofka bani aadamkaa la doonayo mistaaqiyadiisa iyo shaksiyadiisa in lagu baabi'iyo si aan waxba looga rumaysanin. mar kale ilaahay fi suurati furqaan wuxuu ku yidhi wakadalika jacalnaa likulli nabiyin caduwan min almujrimiin wakafaa birabbika haadiyan wanasiira. nebi kastaba waxaan u sameeyey baa ilaahay uga u diyaarhaa cadow dembiilayaasha ka mid ah, laakiin ilaahay baa u hiilinaya. arrintu intaa way sii dhaafi jirtay oo siduu qur-aanka kariimkaa ilaahay lagu barayo gaaladu intay cayda dhaafaan ayay nebiyada ilaahay gacanta saari jireen, siduu ilaahayba kaga warramay qur-aanka kariimkaa nimankii reer banu israa'iil iyo dhaqamadoodii soo sharxba. kulamaa jaaahum rasuulun bima laa tahwaa anfusuhum fariiqan kadabuu wa fariiqan yaqtuluun. mar kastuu rasuulu yimaado wuu ula yimaado diin aanay jeclayn, nebiyadaa qaybna way laynayeen qaybna way beeninayeen. arrintani waxaa si cajiiba u soo bandhigay ama u ogaa cid kastoo khibradu leh waxyiga ka sakow. waxaynu ogsoonnahay markuu ilaahay soo diray nabiga calayhi salaatu wasalaam nebi maxamed casharkii u horreeyey waxa siiyey malakuljibriil, isagoo yaro cabsanaya markuu yimi xaaskiisii khadiija bintu khuwaylid, iyaduna cashar dejina ayay siisay oo cabsidii nebiga ay kaga biinayso. casharkii saddexaadna waxa siiyey ninkii la odhan jiray waraqatu bnu nawfal, nin xaaska nebiga khadiijo ay xigta ahaayeen buu ahaa sida axaadiidta ku aragteen. ninkaasi diintii kirista ku haystay wuu ka dhegaystay nebiga calayhi salaatu wasalaam. nebiga markii uu dhegaystay waxa u sheegay ka u yimi inuu yahay naamuus, malagii u ilan jiray nebiyada. waxaan uga socdaa waraysigii kadib wuxuu mararka u sheegay nebiga calayhi salaatu wasalaam in dagaal ku bilaabi doono. laytanii fiiha jadac, waktiga aada rasuul noqonayso hadda soo baxday laakiin aada hawl galayso nin dhallinyaraa maa noqdo xoog leh. laytanii akuunu fiiha xayan, waktigaa nin nool maa noqdo. rasuulku sala allahu calayhi wasalam su-aal buu ninkii weydiiyey wuxuu yihi awa mukhrijiyahu oo miye maan jooga buu yihi markaa ninkaasi waktiga qoladaada ay ku eryi doonaan, waktiga qoladaadu ku eryi doonaan maan jooga. nabigu wuxuu yihi awa mukhrijiya kuu yaabay rasuulku oo miyay eryayaan. waxaan uga socdaa marka wuxuu yihi lam yaati rajulun bimidli maa ji'ta bihi ilaa cunf. qof kasta oo adduunka la yimaada shaygaa aada la timida xaqa ah waa la colaadiyaa. marka qodobkeena labaad arrintaasi ama qisadaas waxay ka jawaabtay cadaawadda sababteeda oo ah qof kasta oo diin la yimaado diinta islaamka oo ay ka qabto oo ka tegi waaya colaadaas waa ku soconaysa. aayado badan baana ilaahay uu ku caddeeyey qad naclamu innahu laa yaxsunuka aladii yaquuluun fainahum laa yukadibuunak walaakina alظaalimiina biaayaati illaahi yajxaduun. nebi maxamedow waan ogahay buu lahay inay murugo kugu hayaan iyo dhib hadalkooda iyo dagaalkooda, laakiin waxaan kuu sheegayaa gaalada adiga kuma beeninayaan shaksiyadaada, aayadaha ilaahay ad la timid ayay diidayaan. marka macnaheedu waxa weeye sababta siraaca iyo sababta cadaawadda waa diinta aada la timida xaqaa daraaddeed. waxay lahaayeen qoladii saalix loo diray taasoo kale ilaahay kaga warramay yaa saalixu qad kunta fiina marjuwan qabla haada. saalixow rajaalu kaa qabnay intaanad la imanin diintan, marse haddaad diintan la timid
dagaal baa inoo dhexeeya. waxa isweydiin leh miyaanay cudurdaar bay leeyihin ma jaahiliin baa maxay diinta u qaadan waayeen iyagoo garanaya inay xaq tahay diintaas ayay iska diideen. ilaahay baa caddeeya wuxuu wajaxaduu biha wastayqanata anfusuhum dulman wa culuwa. way garteen inay yaqiin tahay waanay fahmeen laakiin gardarre iyo kibir daraaddeed ayay xaqa isaga diideen. markaynu ku soo dhowaano si kale cadaawadda noocana ee u dhaxaysa dadka ilaahay rumaysan subxaanahu wa tacaala iyo dadka diinta xaqa ah ka soo horjeeda ma dhammaanayso inta adduunku jiro. tusaale kooban baa laydin siinaya ama basiira si wax loo fahmi karo. maalan dalka cudur baa ka dhacay ama adduunkaba waxaynu furnay dhakhtar wanaagsan oo aynu doonayno dadka inaynu ku daweyno. dhakhaatiir bilaash ku dawaysana waynu keennay iyo dawo fiican. nin baa wuxuu inaga ag furay dhakhtar xun oo dadka joogaana aanay aqoon lahayn, dawadiisuna ay tahay mid sura lagu boqonayo. weliba wuxuu ku darsaday dadka wuu ka iibinaya, weliba wuxuu ku darsaday ki iibsan waana uu ku qasbaya. isagu markaa ma ogola dhakhtarkaa wanaagsana sida fiican wax loogu daweynayo. intuu caayi kara uu caayaya, intuu la dagaalamayo uu la dagaalamaya, weerar buu ku qaadaya. xaggiisa ka joogsan mayso colaaddaa iyo dagaalkaas. innaguna sidoo kale eegan kari mayno qofkaa dadka sunaynaya ee halaagaya ee weliba ku qasbaya. digtoorkaa faalsada ah iyo dawadiisaa suntaa ma eegan karayo. marka dagaalku xaggiisa ka joogsan maayo oo badeecadiisa xun buu doonaya dadka inuu ku qasbo. innagana xaggeena ka joogsan maayo kaa inaynu dadka ka qabanaa waa muhiim. marka haddii la yidhaahdo waa la heshiiyey oo cadaawaddii meesha way ka baxday, labadii qolaa laga adkaaday wey, weliba dadka muslimiintaana laga xoog batay. taa waxaynu uga jeednaa dawadii baynu inagu sidnaayo diinta islaamka ah. isaguna suntaasuu xambaarsan yahay gaalnimada ah. intaa marka aan soo dhaafo waxaan u soo gudbi lahaa qadiyad dadka qaarkood ay ku yara kalsoomaan oo ah arrinta xorriyadda. in xorriyadi jirto oo xorriyada u dhaqdhaqaaqayaan. xorriyadda noocaasa marka laga hadlayo laba galaan baa lagu miisaa. galaanna innagaa laynoogu miisaa, galaanna iyagaa lagu miisaa ama ay ku miistaan. innagu waxaynu leeyahay muqadasaad iyo waxyaabo lama taabtaan. waa diinteenna wanaagsan, dadkeenna wanaagsan iyo dalkeenna wanaagsan. diinteenna islaamka iyo ilaahay soo dejiye waa lama taabtaan agteena. dadka wanaagsanina waa awliyada ilaahay ee rasuulladu ay horkacayaan. dalka wanaagsanina waa goobaha cibaadada. intaasi agteenna waa lama taabtaan. waana intay sheeganayaan inay xoog yihiin inay wax ka sheegaan. iyaguna waxay leeyihiin muqadasaad bay leeyihin lama taabtaan. haddii ay kaa qarinayaanna ama ay kaa qarsoon tahayna inaad ogaato ay tahay. muqadasaadka agtooda lama taabtaanku waxa weeye waa diinta xun iyo dadka xun iyo dalka xun. diinta xun waa calmaaniyadda, alcalmaaniya. waa dhegaysanaysa maalinta dhowey madaxweynaha faransiisku mucallinkii la dilay markii uu la hadlayay ee macallimiintana hadalka u jeedinaya, xorriyaddii waanu sii wadi kanaal yeel, calmaaniyaddana waanu ilaalin doonaa. calmaaniya waa dadka in laga kaxeeyo diinta. marka diin la-aantaas muqadas bay agtooda ka tahay. waxa labaadoo agtooda lama taabtaana goobaha xunxun sida meelaha khamriga lagu cabo iyo meelaha lagu sinaysto iyo meelaha ummadda la isugu keenay khamriga lagu khamaaro. meelaha xorriyadda loo yeelo lama taabtaankaa wey. dadka xuni agtooda waa lama taabtaan. bal iminka markaad adduunyada maraysa qoomuluudka nimanka la idhaahdo ama luudiyiinta ee bani aadamka xagga dambe ka mara
cidi kama hadli karto yuhuudda iyo ahlihooda cidi kama hadli karto dadka dhibka badan adduunka iyo kuwa akhlaaqda xun agtooda waa lama taabtaan xorriyad loola laha marka ha ku kalsooni marka laga hadlayo waxa xorriyadda la yidhaahdo ilaahayna wuxuu qul laa yastawi alkhabiithu waatayib walow acjabaka kasratu alkhabiith arrinta afraad ee ka hadli lahaa baraarujin lahaa waxa weeye caynay nabiga caayaya calayhi salaatu wasalaam ama sawirada xuxun ay sawirayaan iyo dacaayadooda miyay wax u yeeli karaan rasuulka sala allahu calayhi wasalam maya waxba kuma yeeli karaan nabi maxamed wax ay ku yeeli karaan male nin ilaahay darajeeyey ka dabagala isagaa daalaya ilaahay baa darajo siiyey nabiga calayhi salaatu wasalaam qur-aankana ilaahay baa kaga jawaabay wuxuu uhi innaa kafaynaaka almustahzi'iin annagaa kaaga filaanay kuwa kugu dheeldheelaya horena ilaahay wuu uga filaaday iminkan wuu kaga filaanaya inna shaani'aka huwa alabtar ka kuu caraysani isagaa cidhibtiisu goy doontaa goblami doona dhacdal buu ilaahay dusha uga tuuray ina aladiina yu'minuuna allaha warasuulahu lacanahum allahu fi dunya waalaakhira wa acadda lahum cadaaban muhiina kuwa ilaahay iyo rasuulka dhibaya ilaahay baa adduunyada iyo aakhiraba nacdalay cadaab buleeyana wuu u diyaariyey waxaa taariikhda ku xusan dadka muslimiintu markay la dagaalamayaan gaalada wakhtiyadii jihaadku ognaayo u socday waxaa dhacaysay markay qalcad gaal ka qabtaan gaalada ku jiraan ee ay ciriiri galaan nabigay caayi jireen calayhi salaatu wasalaam wakhtiyada ay jabi jireen la garan calaamadda lagu garan jiray inay jabayaan gaaladu waa markay nabiga caayaan mar haddii meesha iyagoo ku xidhan oo dagaal ku jira ay nabiga caayaan oy qur-aanka caayaan oy ilaahay caayaan markaasaa lagu bushaaraysan jiray oo la odhan jiray haddaa ilaahay loo jabinaya iminkana waxay ku bushaaraysanaynaan inuu ilaahay subxaanahu wa tacaala jawaabta kaga siin doono intaa markaan ka imaado kolley cadaawaddaasi ha jirto haddana dadka gaalada ah waxaa jira qaybo la yidhaahdo almunsifiin oo markhaatiga ay nabiga u markhaati furayaan calayhi salaatu wasalaam ka run sheega iyagoo aan raacin iyagoo nabiga rumaynin oo raacin ayay ka run sheegaan xaqiiqadiisa nabiga calayhi salaatu wasalaam laba tusaaleynu soo qaado mid wuxaa waktigii nabiga ninkii hiraqle la odhan jiray ee ka madaxda ahaa reer yurub nabigu waraaq uu diray calayhi salaatu wasalaam wuu ku yeerayo diinta islaamka ninkii uu hadla wuxuu yihi maxamed nin la idhaahdo waraaq ii soo diree cid wax ka taqaana ma jirtaan abi sufyaan iyo qolo la socoto safar ahay ayaa la soo helay waa loo keenay qisada waxaa ku aragta saxiixa oo waa xadiid la wada yaqaana waxaan uga jeedaa 10 su-aalood ku weydiiyey 10kii markuu dhameeya wuxuu yihi sidaa aad sheegtay haddii ay run tahay halkaa aan taaganahay ayuu ka talin doonaa halkaa aan taaganahay ayuu ka talin doonaa waxaa dhacday qasaabusadii iyo raggii madaxdii diinta iyo ciddii xukunka kula jirtay waa kii u yeedhay halkaasi ay ku dhowgul horumaraya hawle bay raaci way diideen markay diideen uu istaag raaciyo waa kii khalaas waxaan tijaabinaynaa diinta ku adag tihiin in kale dawladaydu ku darday wuu qiray xaqii laakinahu matabac muu raacay ninka labaad waa ninka la yidhaahdo casrigan michael hart yahuudiya weeye waa nin maraykana waa nin masiixiya qaybta mustashriqiinta la yidhaahdo weeye itiraafka islaamiga diinta wax ka sheega ninkaa isaga ahay 28 sannadood buu qorayay marar badanna ee culimada wax ka soo qaadanaya waa maqasheen markii dambe waa kilaada ku soo bandhigay markii uu qoray kitaabkiisii caanka ahaa loo yaqaanay alkhaaliduuna almia boqolka nina taariikhdooda waarayso
وحوصوا الرئيسي النبي محمد عليه الصلاة والسلام markuu nabiga ka bilaabay dhageystayaasha sidan oo kale u dhageysanayay way fooriyeen way qayriyeen iyagoo doonaya inuu ka joojiyo halkaa uu ka bilaabay uu joojiyay waxaan uga socdaa dhowr arrimood ku xusay oo kaga markhaati kacayo nabiga weynaantiisa cadamadiisa iyo runtiisa rasuulka sala allahu calayhi wasalam waxaan ku doortay udhiyinkaas dadkaa taariikhda galay oo dee qaar xumaan caan ku ahaa iyo qaar khayr caan ku ahaa labadaba way leeyihin waxaan maxamed ugu horreysay buuri dhowr arrimood 5 arrimood ta u horreysa weeyaan wuxuu ka soo dhex baxay ummad aan xadaarad lahayn wax kaydahoo uu sii haystay ma jirin dadkan kale ee iyaga aan taariikhda soo geliyey dee intooda badan ummadahoodu taariikh iyo kayd bay lahaayeen meel uu qofku ka duulo iyaroo 25 jira buu ahaa agoon markii uu yaraa adduunna aan haysan 4 qof baa ugu horreyn rumeeyey xaaskiisa iyo saaxiibkiisa iyo 2 dhalinyaraa haddana 1400 sano kadib waxaa rumaysan buuri 1 bilyan iyo badh qof milyan iyo 500 oo qof milyan iyo 1500 milyan ayaa hadda rumaysan maalin walbana way sii kordhayaan maalin walba dadkaasi way siyaadayaan waxay ii muuqata waan isku qancinayaa dadka intaa leeg inaan wada khiyaamayn karin waxa labaad aan isku qancinayaa been inaanay jirin 1400 sano soconaysa baasha beenta la yidhaahdaa dee waataynu inagu odhan jirnay lug kaliya ilaa lugtaasun baa la qabtaa waar been ma jirta 1400 sano shaqaynaysa marka inuu run sheegayo ayaa halkaa ka cad waxa kale oo tilmaamo ka sii cajiib badnayd oo ta imika malaala inagu tijaabinaya isagu dee micyaar ku leeyahay waxa wax ku qiyaasayo qofkani saamayntu dadkan ku leeyahay saamayntaasi cumqigay leedahay saamayntaasi tajadudkay leedahay kolba se soo cusboonaanayso wuxuu kaga duwan yahay uu dadkaa kaloo dhan 1500 milyan ee rumeeyey waxaa ka mida malaayiin ka mid ah oo haddii magaciisa la taabto u tabaxiyeynayo u dhimanaya marka nabiga la caayo waa dhulka laynagu tijaabinaya haddii nabiga la caayo oo magaciisa la soo qaado xumaan lagu sheego malaayiin qof baa laftooda u huraya xageebay nin quroo yahuudi ama masiixi ma jiro oo haddii nabigiisa la caayo naftiisa u huraya haddii ilaahiisa la caayona iskala dah haddii ilaahiisa la caayo ama nabigiisa la caayo naftiisa u huraya ma jiro arrintaas waxay tilmaamaysaa saamaynta intaa leh ee soo cusboonaanaysa ee iskala taagan inuu nin weyn yahay waa rasuulka isaguma odhanaya ma rumaysna laakiin inuu yahay acdamu alculamaa kuwa weynka ugu sii weyn inuu yahay baa ku qancay qur-aanka markuu ka hadlayna dee waa kii lahaa kutubtii la keenay oo dhan waa wada muxaraf marka laga reebo qur-aanka maxamed uu keenay isagu sidii lagu soo dejiyo weeyaan المهم مرخاتي waxay noogu filan ilaahay subxaanahu wa tacaala intaa markaan ka soo gudubto qodobka shanaad ee gudbi lahaa waxa weeye fadhigan oo kale ama kaalintan imika aynu qaadanayno xukunkeedu waa maxay in nabiga la difaaco diinta halkay kaga jirta ma wax la iska dayn karaa ma wax la iska fududaysan karaa mise waa arrin sharci waa waajib sharci واجب النصارى وينبغي الدفاع عليه الصلاة والسلام دليل هذا صوص على ثلاثين إلهي لا يقول إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا أنا بقى هداويه لويدان إلهي لا يقول مروا النبي عليه الصلاة والسلام لبع يا هاي سبي أبو بكر وأبو بكر النبي أم حي أو النبي ندى تشيلي أو لا تحزن إن الله معنا ما ريت أسأل مساوي ريالي يد إلهي يهيلي وشو قالوا هاي سبحانه وتعالى مركو وحلا ينبو بابنا يسجد لها يهيلي ينبو أرنت لبعض
jacaylka nabiga aynu jecelnahay iimaankeenu ka mid yahay waa min aliimaan sidaynu wada ogsoontiina xadiidkii cumar bn khadaab iyo nusuus kalaba shaygan ugu adag lama ilaawo waxaad aaminsan tahayna lagama aamuso waa xikmad hadduu shay kugu adag yahay markaad seexataad ka fikiraysa markaad socotaad ka fikiraysa marnaba maskaxdaada kama baxayo haddaad shay aaminsan tahayna kama aamusti waxaad ka aamusaysa maaha ood fudaydsanayso ama aada hilaalinayso arrinta saddexaad nabigu sala allahu calayhi wasalam wuxuu sheegay qofka difaaca qofka muslimka ah ee walaalkiiyo sharaftiisa ilaahayna wejigiisa ka difaaca maalinta qiyaamaha naarta maxaad u malaynaysaa qofka sharafta nebi maxamed difaacaya calayhi salaatu wasalaam salluu cala rasuul iyadana de waad garan karaysa sharafta nebi maxamed qofka difaacaya ilaahayba ka difaacaya naarta arrinta afraad in nebi maxamed wax laga sheego calayhi salaatu wasalaam la xaqiro lagu soo duuro waxa weeye munkar waa dembi weyn dembigana qofka aan ka muxuu nabigu calayhi salaatu wasalaam dee darajaad ku lahaa qofba siduu diidi kala haw diido dowladaha islaamka iyo madaxdu kaalin bay leeyihin culimadu kaalin bay leeyihin aqoon-yahanku kaalin bay leeyihin saxaafadu kaalin bay leeyihin dee wataa ummadda islaamku isku raacday alaabtooda gaalada aan iska daynay waxaa aada u cajiiboo aan arkayay intii aynu dhagaysanayno waxyaabaha socdaa magaalo soolaana baa isbaadbaadhayoo waxay waayeen alaab faransiisku uu leeyahay oo ay muqaadaceeyaan markaasaa waxay soo heleen macallin luqadda faransiiska dhiga kiibay muqaadaceeyeen faransiiska kale ay noogu dhoweynahay adeer waxbaha noo dhigin orod naga tag macallinkii oo duur weyn oo meel iska fadhiya ayaa la soo sawiray waxay sheegaysaa taasi qofba darajada uu ku diiri karo munkarka waxay iyaduna aada u sii cajiib badan oo inaga qancinaysa arrintan xukunkeeda sharciga markay gaaladii reer maka nebi maxamed caayeen sala allahu calayhi wasalam rasuulku kama aamusin asxaabtiisii gabayaagaha buu yeedhay waa afkudir waxaa lagu dagaalamayaa waa cod iyo qowl iyo qoraal baa lagu dagaalamaya kacab binu maalik buuri gabay wuu yaro saroogay macnaha aada uguma dheeraan wuxuu u yeedhay cabdullaahi bnu rawaaxa isagana aada ugumu bogin xasaan binu thaabit baa u yimid amar buu siiyey nebigu uhjumhum aw haajimhum wa jibriilun macak xadiidka saxiixa ah weerar ku qaadi waa amar ma aha ikhtiyaar amar wey weerar oo afka ku weero malaku jibriilna wuu ku wehelinaya xadiidka saxiixu muslimna wuxuu tilmaamayaa ee caaisha ay warinayso ina ruuxa alqudus laa yazaalu yu-ayiduk maa naafaxta can illaahi wa rasuulih malaku jibriil wuu ku barbar taagan yahay intaad difaacayso ilaahay iyo rasuulkiisa innagana ilaahay waxaynu ka baraynaa mar haddii kulankeena aynu nebi maxamed ku difaacayno inuu malaa'igtiisa wehel inooga dhigo wehel allah inooga dhigo arrintaasina runtii waa midhaan xusuusin lahaa shantaa arrimood daraaddood waxa ay inoo sheegayaan inaynaan fudaysan karin arrintan oo kale ee la isu taago laga bareero habrashadana la iska daayo kolba wixii munaasib ahee xikmad lehee sharcigu ogol yahay inaynu arrintaa kaga jawaabno waxaan usoo gudbi lahaa intaa horbaca haddaan kaga imaado si kooban inaan u yaro dul maro sifaadkii nabiga calayhi salaatu wasalaam waxaynu uga jeednaa si aynu nebiga qalbigeenna ugu weynaado oo aynu u baranno oo aynu u weyneyno cid aanad aqoon ma weyneyn karaysa ummadaha kale haddaynu ka sugayno inay weyneeyaan ixtiraamaan waa inaynu nabi weyneynaa nabiga calayhi salaatu wasalaam waa inuu qalbigeenna ku weynaadaa dhaqankeenna ku weynaadaa oo rasuulka sala allahu calayh wasalam xaqiisa aynu siino ugu horeyn dee kolle waqtigu waa cidhiidhiya nasabka nebigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu marayaa silsilad qaali ah oo ilaahay ilaahiyey sala allahu calayhi wasalam ilaahay baa ilaahiyey subxaanahu watacaala ilaa uu ka gaadhayo nabi ismaaciil sidaana waxaa tilmaamaya kolle xadiidka saxiixa ah
حديث صحيح هذا تاسكو سقطاي رسولك مركا يوصل نقول قروح ديس وحاول أجمل الناس تذكر لك قروح بدن ضرب له عازي وحولنا يا حديث صحيحين في السقط نبي روحه وهذا أحسن الناس وجها وأحسنه خلقا ليس بالطويل الباين ولا بالقصير كون قروح بدن له هالقوة ولا أحسن حق موقال ضدك وبناء أخلاق في عن مدار دار ما هي مدار دارنا ما هي حتى نبي الله يوسف إنه كقروح بضاء أيا أي تلبان أيام علماء إبدا وكمله ومركو النبي لها نبي يوسف وحل السياق قروح لبركين وعدي سجى كصحابي رسولك كصحابي نبي وحل السياق قروح لدمانتين نبي يوسف لقروح لبركين رسولك صلى الله عليه وسلم شركيس روحها من طاهرة ونظيفة وأدقل لذلك روحه كملها ما لها لقصة صار عرك ما لها كملها وساحري كوريجي أم سليم أنا سويت ودي النبي عليه الصلاة والسلام كان سكيل كفى يدستي قرارة يربي سواق قاضي وحيكون قرر يسديه كذا وصوت وصور أم سليم حاسة ما ينسى دليل كان كفى يدستنا إلى بيت نجعله في طيبنا وهو من أطيب الطيب وحنا كدرينا على كيان كدرينا على ربنا كأود قومي سلا صلى الله عليه الصلاة والسلام سوى إفك شوله أي صفات كيه وجنها قرها وحنا كلبوني ترى ولا بركة سنجري بيه كويس السنة يعني رفتيسه يديكيسه يدعانكيسه ينتبهيسه يبهكيسه ninka inta qofka inuu ninta gacanta la gaara qof ayaa la dhahaa isaguna ummadda wala oqolaa maalintii xajjatul wadaa ciidii markuu timaha xeeray ummadda u qaybiyay markuu dhintay iyo markuu noolaa labada wala barakaysanay dharkiisa markii uu dhintay inta la maroojiyo biyo la galiyo ayaa lagu daweyn jiray qofka bukaanka ah waxa xusid mudan arrintaa isaga u gaar tahay cid kale oo sakab la mid ma jirto oo wadaadada intood mid soo qabsato ulan maysi dhididkaaga iyo dharkaaga ayaa barakaysanaya nabigu calayhi salaatu wasalaam marka la eego xoogiisa wadaad miskiina ama daciifa ma ahayn shaqooyinku markay adkaadaan isagaa loogu yeedhi jiray aqwa annaas waxaynu garanaynaa markii godkii khandaqa la qodayay kudiyadii iyo dhagaxii soo baxay asxaabtu markay mari waayeen isagaa loo dhiibay dubaha wuu dul dhigayoo finiinku kaga dhigay aqwa annaas waa dadka u xoog badan nabigu wuxuu ahaa calayhi salaatu wasalaam marka la soconayo xooggiisa iyo haybadiisa ka muuqanayay jirhkiisa ilaa ay asxaabtu laadeen waxaanu moodayna inuu meel ka daadegay isagoo si dabiiciya u soconaya akhlaaqdiisa quruxda badan haddaynu u dhimaado arrimaha hore horta dee waa khilqiyo waa haybad ilaahay uu siiyo wuxuu gartayoo lagagama dayan karo awsaaftiisa xagga abuurka ah ninbaa waxaa la beri hore nabigu jeclaaday sala allahu calayh wasalam dhammaanteen way wada jecelahay laakiin qalabkuu yaro fahmayo tilmaamihii lagaga daynayay kuwii aan lagaga daynaynin ayaa iskaga darmay nin salxanyar dhaadheer buu ahaa timihiisa intii soo dheeray buu xiiray war maxaa dhacay markii laysoo adigan xagga hore dhanxiir ku noqday wuxuu yidhi kaana wejhu rasuulillaahi mustajiilan wejiga nabiga ayaa sida dayaxoo kale ahaayo aniguna kii baan isu egeysiinaya taasi sax ma aha awsaaftiiyo tilmaamaha nabiga la ysaga egeysiinaya waa kuwa khuluqiga ah ee dhinaca akhlaaqda nabiga calayhi salaatu wasalaam ilaahayna akhlaaqdiisa qalbisay ammaanay wa innaka la calaa khuluqin cadiim waan dadejinayaa wakhtigaa igu soo cidhiidhiya aada u xishood badnaa sida xadiidka bukhaari uu tilmaamaya xishoodku waa qaali dhallinyaro inanta gurigeeda ku jirteen kama bixin uu ka xishood badnaa nabigu calayhi salaatu wasalaam ma yadaa ku adkay wuxuu diilaya wejigiisa laga akhrisanaya dulqaadkiisa waxay naga filaa gaaladii dilayo dhiigu dareerayo ayuu lahaa allaahuma hdi qawmi fa innahum laa yaclamuun ilaahaw tolkay ilaahaw hanuun waxbaba garanayaan
markii uu ka gacan sareeyay maka uu xoreeyay isagoo tobankuna ciidana watana wuxuu idhaabu fa antum tulaqa hankiisa weynaa nabiga calayhi salaatu wasalaam juudkiisa iyo deeqdiisa ilaa rag waa dood iyo deeq iyo dagaal waxa uu ahaa midaan odhan jirin siduu jaabir ibn cabdillaahi xadiidka saxaaxa ku warinayo wixii la weydiiyo mayadama odhan jirin nabigu calayhi salaatu wasalaam oo arrinaan ciday kale ka suurowdaan lama heli karayo haddaanu markaa haynina ballan buu qaadayaa qofka wax cajiiba weyn geesinimadiisa asxaabtu markay ka warramayaan xadiidka saxiixa waxay leeyihiin markuu dagaalku adkaado sida taangiga isaga lagu gaban jiray kaaraha hadiyo jeer ciidamadu dee taangiga u horreysay isaga lagu gaban jiray sida madaxda qaarkeed uu odhan jiray bal hadda sii socda oo iyo waxaan ku soo hadli doonaa rakaalka iyo raadiyaha ku soo hadlaya bal hadda hebela hoggaan uu odhan jiray isagaa shoolada ugu dhici jiray nabigu calayhi salaatu wasalaam ana nabiyu laa kadib ana bnu cabdilmutalib isagoo erayadaa tirinay ayuu sii eryeeyey gaadiidkiisa maalintii xunayn zuhdigiisa nabiga calayhi salaatu wasalaam iyo tawaaduciisa wuxuu lahaa maa lii walidunya aniga iyo adduunyada maxaana kala galay waxaan ka dhiganahay sidii nin socdaal ku jira oo geed yaro hadhaystay taa meel buu iska dhigay wuxuu lahaa innamaa ana cabdullaahi wa rasuuluh aniga sidii ciise bnu maryam loogu xadgudbay ha igu xadgudbina anugu waxaan ahay cabdullaahi wa rasuuluh addoonkii ilaahay iyo rasuulkii ilaahay baan ahay wuxuu u diidan yahay nebigu inay qadarkiisa dhaafiyaan oo sifaadka ilaahay la siiye subxaanahu wa tacaala alla ka cabsigiisa waxaa ka turjumayay inuu habeenkiisu taagayo cibaado caguhu baranayeen oo marka la weydiiyana wuxuu odhanayay afalaa akuunu cabdan shakuura miyaanan ahayn aanan noqonayn addoon ilaahay u mahadnaqa subxaanahu wa tacaala xusnu cishrati dhaqankiisa wanaagsan kuwa xaasaska iskaba daayo kuwa ummadda kale jariir ibnu cabdillaahi baa ka warramaya waxa uu leeyahy intii aan islaamay marna nebigu iskaba kay xijaabina mar walba horaan ugu tegayay markaan ku soo baxana weli dhaa la caddayn jiray waxaa ka sii cajiib badan xokayntiisii anas ibnu maalik 10 sanaan u shaqeeyey marna igu odhanin laba su-aalood oo shaqaalaha lagu canaanto waxaa maxaad u samaysay iyo waxaa maxaad u samayn weyday waa labada arrimood ugu dhib badan shaqaalaha rajaaxatu caqli oo wufuulu caqligiisii weynaa wuxuu ahaa acdamu qaa'id fi taariikh hogaankii ugu weynaa ee soo mara adduunkan waxalla waxaad garanaysa kacdoon ay samaynayeen nimankii la odhan jiray munaafiqiintu wuu delin jiray nabigu calayhi salaatu wasalaam caqligiisa iyo cilmigiisa iyo codkarnimadiisu ku dawayn jiray waxayna ogsoontahay intaan lama soo dirin nabiga calayhi salaatu wasalaam inuu u garqaadi jiray qabaa'ilka waxaasoo dhan marka aynu ka soo gudubno waxaa aada u weyn usii cajiib badnayd fasaaxadiisa nabiga calayhi salaatu wasalaam qolada balaaqada iyo hadiyo jeer hadal cunka ah ee codkarka ah waxa ay gaarsiiyeen heerka bani aadam la gaarsiiyey halka u sarraysa nusuus badan iyo axaadiid badan ayay tusaale usoo qaataano fasaaxadda nabiga ka turjumaya calayhi salaatu wasalaam bikayri takalluf isagoo aan isdhibayninba marka taasina runtii waxyaabaha ilaahay uu ku galladay ahayd oo cilmi iyo caqli iyo codkarnimo intaba ilaahay uu isugu daray si dadka u qanciyo una soo hanuuniyo wuxuu ahaa nebigu calayhi salaatu wasalaam khalqiga ilaahay oo dhan inuu fadli badan sida ay culimadu intooda badani qabaan oo nusuustu way caddaynaysaa inuu bani aadamka u fadli badnaa ambiyada u fadli badnaa mar hadduu ambiyada u fadli badnaana waxaa ka dhalanaysa bay leeyihin inuu khalqiga ilaahay oo dhan u fadli badnaa hore markaynu sii soconno caalamkaynu geediga u nahay xaggiisa waa saaxibu alxawdi washafaaca dalka ayuu nagu sugayaa nabigu calayhi salaatu wasalaam allah inoo aqbalo ana faradtukum cala alxawd waxaan idinku sugayaa buu goobta laga cabayo waxaana ka cabi doona ciddii aan sunnihiisa khilaafin ciddii sunnihiisa khilaaftay in laga joojin doono ayuu nabigu inoo sheegay calayhi salaatu wasalaam sayidu nnaasi yowma alqiyaama khalqigu markay isu yimaadaan maalinta qiyaamaha isaga ayaa calanka mahadda u sida nabigu calayhi salaatu wasalaam awalu man yadkhulu ljanna waa cidda u horraysa jannada aftaxaysa ee gelaysa sidaasaa malagga khaasin la yidhaahdo marka uu nabigu garaacay albaabka wuxuu ihi adigaa la ifara inaan kaa furo cid kaa horraysa oo aan ka furayaana ma jiro
sida xadiidka saxiixa ku sugan ugu dambeyntii walaalayaal waxaynu jeclaysanaynaa inaynu arki lahayn nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam siduu isaguba inoo jeclaaday inuu in arki lahaa asxaabtullah hadba wuxuu yidhi waxaan jeclaaday inaan walaalahayn arki lahaa markaasaa waxay idhahan alasnaa ikhwaanaka yaa rasuul allah miyaanaa walaalaha ahay antum asxaab idinku asxaabtaydi baa tiino waa ka darajo weyntiina waa ka horraysaa laakiin walaalaheen waxa weeye qaar iman doona oo iyagoo aanay arag rumayn doona marka sidaa araggeena u jeclaaday nabigu calayhi salaatu wasalaam innaguna waynu jeclaysanaynaa inaynu arki lahayn alla waxaynu weydiisanaynaa inaynu ku aragno jannada iyo xawlka halkaana inoogu horkaco dardaarankaygu walaalayaal waxa weeye dadkay dhegaysanaya kelmaddan kusoo gabagabaynaya raasamaalkeenu waa diintaasaynu ku badbaadi karaynaa laynagu haysto aan haysano cadowgeennana aynu ogaano muqadasaadkeennana aynu ilaalino aan baranana ilaahay aan baranno qur-aanka aan baranno rasuulka aan baranno raaciddana ku dadaalno rasuulka caynkaasa muxuu xaq u leeyahay maxaa inaga waajib inagu ah ee isagu uu xaq u leeyahay sheekha ugu xiga ayaa uga bixi doona asalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu